wararka naga soo gaaraya buuraleyda caalamiska ee gobolka Bari ayaa waxa ay ku waramayaan in israasaasayna ay dhaxmartay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland oo ku sugnaa buuraleyda caalamiska taliyihii guutada afmeer ee Sakariye Aadan Cali iyo sidoo kale 5 askari oo kale ayaa dhaawac soo gaaray kadib markii israasaasayna ay dhaxmartay ciidamo ka wada tirsan kuwa darawishta maamul goboleedka Puntland oo ku sugnaa deegaanka Turmisaale ee buuraleyda caalamiska israasaasayntani ayaa timid kadib markii qaybo kamid ah ciidamada ay ka gadoodeen isku shaandhayn ciidan oo uu waday taliyaha guud ee ciidamada difaaca maamulka Puntland Aadan Cabdi Xaashi oo goobta khudbad uga jeediyay ciidamada maamulka Puntland ciidamada israasaasyntu dhaxmartay ayaa qaybo kamid ah waxa ay yihiin guutada afmeer oo ah ciidamada dhawaana tababar lagu soo xiray degmada Badhan ee gobolka Sanaag kuwaas oo Turmisaale loo keenay sida uga qayb qaataan dagaalka Daacish mudooyinka ugu dambeeyay waxa socday isbeddello lagu sameeyay ciidamada maamulka Puntland ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka Daacish ma jiro ilaa haatan wax war ah oo ka soo baxay maamulka Puntland ee ku aadan israasaasayntani ka dhacday buuraleyda caalamiska ee gobolka Bari.